بالعسوع علنيو هدينا بالعسوع علنيو وصابعين نظافتها إنو بلا مقالة إنو بلا مقالة هدينا بالعسوع علنيو هدينا بالعسوع علنيو وصابعين نظافتها إنو بلا مقالة إنو بلا مقالة taariikh ay tahay 10 bishii 2022 waxaan shaqo isxilqaan ah ka bilaabay wabigii degmada Afgooye oo fatahaadada ay ku soo noqdeen markii aan u kuurgalay fatahaadadan dhibka ku socda degmada Afgooye inay keentay qashinka wabiga lagu shubo dhowr maraan wabiga tagay waa kormeeray waa qiimeyn badan markaa ku sameeyay waxaan ogaaday wabiga inuu u baahan yahay hadduu guro in qashinkan laga guro annagoo cidna kaashanin dadna garabna siinin dadna aanan wax weydiisanin waxaan ku baaqay shacab weynahaygii in ay taageeraan oo aan wabiga wada galno shaqada aan ugu horeeyo aan bilaabo maanta qalabkii oo wabiga ayaan diyaariyay saakin waa ku dhaqaaqay gudoomiyaha wees adoo raalli maanta adigii duq magaalada ah oo gudoomiyihii u horeeyay intaas gudoomiyaha ka horeysay laakiin waxaa ku guuleysatay gudoomiyihii u horeeyay adigoo ah maxaa kugu qasbay inaa maanta adiga horkacdo shacabkii iyo ku-xigeenadaadii aad tagtaan wabigii aad dhex gashay waliba waxaan aad ugu xumaaday oo caloosha maanta igidiyay waxaa ah wasaqdii xoolihii la soo qalay ee qashinkii wixii dadka ay iska naceen ayaa wabiga lagu shubay maanta argagax aan u dhintay wax aan weligii ilaabi doona ma aha waxa maanta isoo gaarayna wax aan ka bogsan kara ma aha hataa waa ku xanuunsaday maanta wana waa wadi doonaa shaqadaas mid aan joojin doono ma naqanayso nadaafada wabiga ilaa meesha ugu dambeeya aan ka gaarsiiyo ma ka haraayo cid aan kaalmo karno ma leh reer Afgooye daan nahay annaga isxilqaankaasna magaalada dhan waa gaari doonaa maanta waxaan ka bilaabnay xaafadda Siigaale Daaf Eyle barito waxaan ku xijinaynaa Raqayle baargule damaley inta wasaq yaalo oo ku jiro wabiga dhinaciis waxaan jeclahay in gacanteena aan ku qaadno okay xaafadaha xawtaa kama ku jira shacab weynaha dhinaca ka wada dhaxeeya beeraley maxaa ugu baaqi kartaa gacan bin aadan wax ma goyso agabyo beeraley ma ka dalbateen annaga wax aan dalbani male ilaa ay hadda qalabkii yaryara ayaan suuqa ka soo gaday sida garweynta badiilka baaldiyaasha farkeetiyaashan soo gaday ayagay shaqada ku socotaa si isxilqaanay ku socotaa cid alaala ciddii iida awood leh oo rabto inay kaalmadaas ka qayb qaadato waa ka soo qayb qaadi karaan annaga cidaan diidayna male laakiin hay-adaha gargaarka ee samafalka ah ayagoo og in wabiga dhowr mar soo fatahay wasaqna ku jirto indhahay ka laabteen haddana annaga ahaanteena ka shacbi ahaan ka maamul ahaan inaan wax ka qabtaan diyaar u ah gudoomiye adigoo raalli ah intaad xilka imaanin lacag oo 500 ku dhawaad loo ballan qaaday koonfur galbeed gaar ahaan fatahaada degmada Afgooye wabigna lagu sameeyo arintaas intee ku dambeysay maxaad ka ogtahay aniga horta maamulka iga horeeyay wax kala socday aniga hadda kuma soo gaarin lacagahaasna kulay insha Allah haddii shaqada wabiga la galo waxaana loo ballan qaaday in kulay la wabiga shaqo loo qaban doono insha Allah ayadana kaalmada waa sugi doonaa ma hor carreyno annaga waxaan jecelnahay wax inaan dadkeen u qabano isxilqaan ku qabano cidna wax ma weydiisanayno waxaan aad u hambalyeynaya shacabka maanta garabkayga istaagay oo shaqada ila qabtay
gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose oo igu dhiirigeliyay in shaqadan nadaafadda ah oo aan ka codsaday inaan galo asigan igu taageeray ilaa haddana aan u sheegay in shaqada ay sii socoto. waxaan ka codsanayaa gudoomiyaha in asna kaalintiisa uu ka qaato oo soo dhaweeyo nadaafadan. waxaa kaloo u sheegayaa maamul dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayadana macnaha inay soo fiiriso dadkoodii tabaalisnaa oo webiga kusoo noqday in fiiro gaar loo yeesho wax loogu qabto nadaafadaas oo webiga dhexdiisa oo dhib ku hayso. hadda roobkii waa soo dhow yahay intii la soo gaarinaa rabnaa annagana inaan ka dhex baxno. waxaa kaloo u sheegayaa dowladda federaalka ayadana kaalintii ka qaadan karta inay ka qaadataan diyaar u nahay. webigaas webi Soomaaliyeed shacab baa ku dhaqan dadkeena ku dhaqan. waxaan rabaa dadkaas in kaalmo degdeg ah la soo gaaro wixii shaqada ay ku qaban lahaayeen inay helaan. waxaa xildhibaanada dowladda federaalka ku jiro waxaan u sheegayaa maadaama oo hadda kahor lacag la aruuriyay oo ahayd 27,000 oo webiga loogu talagalay oo xildhibaanada ay aruuriyeen ilaa ay hadda waxaa la ii sheegay lacagtaas inaysan deegaanka soo gaarin. odayaasha waxay leeyihiin lacagtaasna ma soo gaarin meesha ay ku maqan tahay gudoomiyihii noo sheeg. anigana xildhibaanadan leeyahay ee kasoo jeeda deegaanka Afgooye lacagihii meesha ay ku baxday iyo meesha ay mareen dadkoodii waa weydiinayaan. annagana jawaabana soo siiyaan lacagtaas cidda ay ku maqan tahay. hadda waa u baahannahay kaalmadii webigan ku jirnaa kaalintooda inay ka qaataan ayagana waa sugi doonaa xildhibaanada. ما شاء الله قدومي آدي هذا يا أمها سنتهاي ما دام إسحلقان أو كبلا دقمة أفقوي ما سند وأنا قايد العدا وأوجد ساعد اللي تاجينا هاي وحل قرح خلال دلنتي إيها وينكي دقمة أفقوي جار أهان حافظها أي ترى يبالجري يسيق عليه أو ما أنت كوسقينا يعني إسحلقان جار أهان بوندد أكت هذانا واحد تاجن ودلنتي دقحتور وبيجي واكنا قشن كنا وحنا ما أنت صان أي كفكري إني قشن كود وبيجي كده بحصدان ما دام هي أدوية كمبنيال إيس جرين أو كبوا قاعدين على كسكو دلنتي هوينكي دقمة أول شيء لما وان أجدان كانوا أجدان وكانوا وعيارتوي دقمة أسجنا أوفي فرعون قار أهان دلنتي بالجرواي أصلا إسحلقان كيو ما أنت كوكي هي wuxuu taagan yahay nagu dayda ku dayasho ayaa mudan. haddaan dawlad le aan dhahno yaa noo maqan waa maya laakiin waa inaan shaqaana kaanu welcome. alxamdulillah ilaahay yaa maxad iska leh kun kadib dadweynaha maanta u jeedin baalgurya ay tira meedaan siisigaale raqayle dhagax tuur marka isxilqaan waxaan ku shaqeynaa ma aha wax oo hadda dad hay'ad u qaado doonay ma isxilqaan waaye انت انا انت كرب نقسينا انا كشقينا ديارنا نسوق قران ان شاء الله. اوكي او بالغوري كسو اوكي marka ma laga yaaba webigo dhan miyaad habeerartaan mas intaana ku ogtiin inta tawarteena webigo dhan rabna anaga rajadaan leenahay hadii waliba aan helno aqaf iyo qalab nagu filan hadda qalab nagu filan ma haysano hadii aan helno qalab nagu filan in sha Allah waxaan jecelnahay inaan guuleysano. kaasi wuxuu ahaa saaxiibkeena kaanu ujeedaan gudoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada waa Cabdullaahi Toosane oo maanta asna isxilqaanka ka qayb galay laakiin ilaa iyo talow mareeri mala geyraba ayaa ogay waa maya انت بقيت انا حق سلام تقبله انت على ما عدنا ولا تديبا
ما ترى أنا كوجي أنا كوهاي بس هو يجوا يجوا قالوا ما مركنا أبايا ويا ايوه هي خوانا شغلنا بسم الله قدومي ما انت waxaa u jeednaa taariikh 10 ayadoo ay tahay bishii labaad 2021 wabigi maadaama maalmahan laga cabaadayay in uu qashin iyo adduun uu ka buuxo oo maanta aad si degdeg ah ku soo gaarteen shacabkiina bal bulshada Soomaaliyeed iyo madaxda koonfur galbeed iyo madaxda federaalka ilaa iyo caalamka maanta maxaa ku bogaadinaysaa maadaama wabiga dhex taagan tahay qashinkan ay gurayso بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم أما بعد ضمان وعرب أنا هل كان كسلامه المدة الصوماليات ميل ولبا ويدافع عالم كالجولان وعن لا ضمان صومالي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد السلام صحو أوشار وحول نوضة الله أوشار وحول نوضة الله dalka nin jooga iyo nin dibadda jooga waa hawl noo wada taalo hawl Soomaaliyeed leedahay kadib markii aan wacyigelin dheer u sameynay bulshada deegaanka degmada Afgooye in laga joojiyo wasaqda webiga ayna aqbaleen bulshadu waxaan mar labaad wacyigelin u sameynay in ay ayagu danahooda gartaan oo webiga ka qotaan waa isu soo xiray carra isku soo xirtay qashankii hore oo ka buuxay iyo carra isku soo xirtay oo webigu markii uu yimaadana aan weel aan wax noo qaada biyo noo qaada aanan haysan oo si degdeg ah bihi ku baxayaan si degdeg ay ku gudbayaan arrintaas waxay dhalisay in beerihii abaaroobaan oo sanad walba beerihii baaba'aan oo xoolihii sanad walba ay biyo waayaan taariikhdii lagu yaqiinay webiga Shabeelle ay baaba'do oo noqdo sagxadan aad u jeedaan sidaasay dhalisay okay maadaama aan nahay reer Afgooye waxaan u bilownay Soomaaliya meel ka soo joogto webigeeda inay ayada qashan baxsato waa idin bilowna Soomaaliyeey adinka iskala waxa aan faraha kula jirno Soomaaliya iskala raas casir raaska gool meesha joogto meesha doonta joogto waxaan u maleynaa qudaarta ka baxda degmada Afgooye ilaa iyo Hargeysa laga isticmaalaa gobolka banaadir laga isticmaalaa gobolada Soomaaliya dhammaan laga isticmaalaa waxaana waa wax Soomaali wada leedahay waa hantidii guud ee Soomaaliyeed waxaan maanta anoo ka shaqaynaynaa biyo waa kuwa ana biyo carray ka hooseeyaan hal mitir hadii la qodo hal mitir kale hadii la qodo waxa loo tagaa biyo loo tagaa marka meeshan waxay u baahan tahay carabnimo waa kuwa ana biyo fiir inta yarta ee aan qodnay hadda fiir biyo waa kuwa halka ayaan inta noo jira fiir وكنت سنتيمتر قدنا maxaa u malaynaysaa hadii 4 mitir 5 mitir la sii qodo maxaa u malaynaysaa biyo laga helaa marka ummadda waxay u baahan tahay in hawshaan ayada ah loo qabtay u baahan tahay waan intaan kale noo qabtay afku anaga isku filan inta wax noo qabtay noo qodo anaga isku filan anaga ummad kale ku filan anaga isku filan anaga ummad kale ku filan waa ma tantii